الرحيم برنامج كوسابسن حرنمدي دلك الصومالية حسبي وهالجمي وجيسياشها ururkii dhalinyarada oo geesiyaasha ahaayuu hogaaminayay Yaasiin Xaaji Ismaaciil waxaan maanta rabnaa inaan xusuusino shacabka Soomaaliyeed xorriyadda inaan bilaash lagu helin oo aysan ciyaarku imaan ragdigiisa u shubay wadanimo iyo Soomaalinimo dalkan oo lahayn dhaqaale oo aan lahayn dad ilbaxa iyo dad wax bartay ayay ka dhiidiyeen gumaysigii Afrika u yimid markaasay waxay ka xanuunsadeen dalka Soomaaliya oo dhan inay 13 wiil inay ka xoreeyaan waana ku guuleysteen insha Allah taala barnaamijkaas taariikh kooban oo aan maanta rabnaa kaga soo qaadno ayaa 1943 markii laga soo bilaabay oo aasaasayashii xorriyadda Soomaaliya inay ku guuleysteen magaca maanta aan harsanayna iyo calanka oo dhan inay ku guuleysteen kabacdina ka gees caalamka oo dhan laga aqoonsaday inay yihiin wadan kamid ah adduunyada waxayna ahaayeen geesiyaal ku caanbaxay wadanimo iyo daacadnimo iyo Soomaalinimo ku caanbaxay ay ahaayeen haddaan magacooda dul maro Yaasiin Xaaji Cismaan Cabdulqaadir Sheekh Saqaawudiin Maxamed Cismaan Baarbe محمد فارح هلولي سيدي حرسي نور محمد علي نور ظاهر حاج عثمان محمود حسين حاج محمود حسين خليف هودو معلم عثمان قيدي راقي دير حاج ديري محمد عبد الله حييسي علي حسن محمد sidaas ay ahaayeen magacyadooda geesiyaashaas waxaan rabnaa maanta inaan ku maraasino ku xusno bal horta yaani gaba yar oo gaaban inaan ila dul marno waxaan waa dhalashadii maaja iyo dhalinyarteeniye dhalaan iyo duqay maalintan dhaxantu ay deysay dhaqdhaqaaqa goortaan bartee leega dhaga qaaday maalintii dhulkeegii carrada ugu dhaqaaqay dhirigelinta shacabkii markaasay ku dhaarteen inay dhab u xoreeyaan daadiya karuurkoodii ayaad wada dhamaysaane maanta se dhamays baan hoo dhaxal ogaay taqsay ciyaar laguma helin dhaban wadaad leeyahay ha ku dheelin gobonimada rag baa dhigu daadiyay ha ku dheelin gobonimada rag baa dhigu daadiyay saasaan leeyahay maanta ummadda Soomaaliyeed meel ka soo joogtana waa ugu hambalyeynaya maalintii xornimada ay dhaliyeen